ماليد waxaa dabcan sida muqtawiilinaya in muqdo wasiirka gaashaandhigga wahagaag dawladda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa iminka qaatay salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka badda isagoo u talaabay dhanka iyo markabka cusub markaasi maraakiibta dagaalka ee dawladda Turkiga maanta ay ku soo weyn magaalada caasimadda ah Muqdisho mar kale madaxweynaha salaan sharaf ayuu qaadanayaa wuxuuna ka qaadanayaa cutubyo ka tirsan ciidanka la filayo dawladda ka shaqeeya Soomaaliya iminka sida waqti dawladda madaxweynaha ayaa gudaha u galay markabkan markab dagaal waxaana iska leh dawladda ما شاء الله I like it Turkiga walaalaheena waa kaliya waa dadkii noo soo gurbaday heshiiskii dhawaan dawladda Soomaaliya annagoo dhanka difaaca naga indhaqaalaha bishii Febraayo sanadkan 2024 la siixatay ayaa si toos ah maanta u dhaqan galaya iyadoo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo macnawi ugu fadhiyo heshiiskan waa farxad wixii hadda ka dambeeyay biyaha Soomaaliya noqon doonaan kuwa ku jira gacan ammaan ah dawladda Turkiga أمان ووالله كليا وعن لنا عتوبة كتير عيدا كبدا سوماليا أي كمان كهذا وسيدو كله يسي طبيب بردونتا أمان ووالله هنا واي تركيا وادك ناس غرمدي أنا وإنده هنا الدون كإنده أنا كقصدي وادك يجري سومالي لما تيجي كرا محل الله ولا تيجي كرا سومالي هلو برجارو وادك يجري أدبان وفرحسناهاي أدبانا ونيتسناهاي تركي ووالالهنا كليا عن ليناهاي مركا خير الله كرديغو أمان بدينا وأمان مركا أمان واي Ekranı taşıyacaklar buraya. Şurayı istiyorum çünkü kimse göremez aksilerde. walaalaheena kaliya waa Soomaali ay leedahay waa Turkiga qof kale sheegay bakanlar, wasiirada sharafta leh, sayın milletvekilleri ve senatörler, xildhibaanada iyo senatarada sharafta leh, kıymetli misafirler. sidoo kale marti sharafta kale ee qiimaha badan. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaan xushmad kalgacal iyo qadarin leh. Maşallah. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız münasebetiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte sevincimize ve gururumuza ortak olduğunuz için başta Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Sheikh Mahmud hepinize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. munaasabada 23 abriil ee maalinta madax banaanida qaran iyo ciidda carruurta awgeeda waxaan si kaliya u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Hasan Sheikh Mahmud iyo dhammaan marti sharafta kale. 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli bir gündür. 23 abriil waa maalin aad iyo aad muhiim ugu ah Jamhuuriyadda Turkiga. 1920 yılının 23 Nisan'ında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve Türk milletinin egemenliğini ilan etmiştir. munaasabadan aan u qaban qaabinay xuska 23 abriil oo ay maanta ku aadan maalinta ciidda carruurta iyo madax banaanida qaran oo aad si wada jiraan ugula wadaagaysaan farxaddan. Maşallah. Bundan 4 sene sonra da bugünü çocuklara armağan eden Atatürk 23 Nisan'ın tüm dünyada ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmasını istedim. abriil waa maalin ahmiyad uguna fadhida Jamhuuriyadda Turkiga. abriil 23keedii 1920kii Gazi Mustafa Kemal Atatürk waxa uu furay golaha shacabka ee baarlamaanka Turkiga halkaas oo uga dhawaaqay madax banaanida Turkiga 4 sano kadibna Atatürk waxa uu maalinka u hibeeyay carruurta isaga oo sidoo kale u aastay 23 abriil in dunida looga dabaaldego maalinta carruurta iyo madax banaanida qaran. Böylesine önemli bir günü Mogadishu limanında Türkiye'li medar iftarı olan Kınalıada korvetimizde Sayın Somali Cumhurbaşkanı'nın ve üst düzeyli saygıdeğer misafirlerimizin teşrifleriyle kutlamak elbette bir tesadüf değildir. maalin runtii sida tan muhiim u ah in dekedda magaalada Muqdisho aan ugu dabaaldegno munaasabad soo xirashada markabkani madaxweynaha dalkana uu inoogu sharfo inuu kaga soo qayb galo xafladani dabcan ma ahan wax iskooda isaga dhacay. Bu dostluğumuzun,
kardeşliğimizin ve kader birliğimizin bir nişanesidir. tani waa astaanta muujinaysa saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo midnimadeena. صح ما شاء Son الله. dönemde iki ülke والله arasında وافرحة affedilen ما أنت anlaşmalar وافرحة bu الله kardeşlik تركيا لا vaadinin نوكي ebedi سووها olacağını tüm إلهي dünyaya وانوكي göstermiştir. لا وانوكي dhowaan labadeena dal heshiisyadii ay kala Ilaahay saxiixdeen waa noo waxay keenay. caalamka oo dhan tustay in xiriirka walaaltinimo uu حسن ahaan شيخ doono mid محمود weligiisii ومهتم jiri تهي doono. ما أنت وأنا بدبانسي 2011 إلهي yılında كسكو Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mogadishu'yu ilk defa ziyaret ettiğinde Somali'yi el ele vererek çok daha güzel bir geleceğe taşımaya birlikte karar vermiştik. sanadkii 2011 madaxweynaheena mudane Rajab Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horeysay booqasho ku yimid Muqdisho. ها أنا نور دماتي Aradan وتعبانة geçen zaman zarfında Somali büyük bir gelişme sergiledi. دون كان عندك قرصة waqtigaas وصح wixii ka dambeeyey Soomaaliya waxay heshay mustaqbal kii hore kasii wanaagsan. ما شاء الله Somali هاي بين halkının daha معتز istikrarlı, daha güvenli ما ve قجر daha على müreffeh قدري yarınlara kısa sürede erişeceğine yürekten inanıyoruz. muddooyinkan soo dhaafnay Soomaaliya waxay muujisay runtii horumar weyn waxaana si dhab ah u aaminsanahay in muddo gaaban gudaheeda ay shacabka Soomaaliyeed gaari doonaan mustaqbal xasiloon إن شاء الله الله فرحة دوي ما أنت فرحة دايدة الله فرحة دايدة ما أنت الحمد لله الحمد لله jiro safarkan الحمد Turkiga wuxuu mar walba لله garab istaagi doonaa إله walaalahoda أذانك Soomaaliyeed. سو قارتي Somali'nin egemenliği Dubai ve adana toprak gasol bütünlüğünün garte, İmarat muhafazası kapsamında desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. لا waxaan أنا rabaa sidoo kale inaan halkan ka caddeeyo mar walba inay naga go-an tahay inaan idinku garab istaagno ilaalinta madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. ثانك يو إلى Sayın قاردسي Cumhurbaşkanı, إلى saygıdeğer تركي misafirler. قاردسي دتك Hepinizi نو سو tekrar قرمد أنا saygıyla وتعبان selamlıyor ودونك ve أنا كنت قرصة müsaadenizle Dışişleri Bakanımız Sayın Waa Hakan idinka. Fidan'ın mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. mudane madaxweyne marti sharafta qiimaha badan ee kale mar labaad iga guddooma salaan qaali ah haatanna waxaan jeclahay inaan idinla wadaago fariin ka timid wasiirkayga arrimaha dibadda mudane Hakan Fidan. Sayın Bakanımızın mesajları. waxaan hadda soo gudbinayaa fariintii wasiirkeena arrimaha dibadda. Sayın Cumhurbaşkanı, mudane madaxweyne saygıdeğer bakanlar, wasiirada sharafta leh sayın milletvekilleri ve senatörler, xildhibaanada sharafta leh iyo senatarada Somali ordusunun kıymetli komutanları, taliyayaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sevgili Somali kardeşlerimiz, değerli misafirler. ما شاء walaalaha الله Soomaaliyeed iyo dhammaan marti sharafta الله qiimaha badan. فرحة نور دلت TCG Kınalıada Farhadan Korvetimizin oradan. Mogadishu Limanı'na gerçekleştirmekte olduğu ziyaret ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik إمارات ve بس Çocuk إذا Bayramı ومد أسوجي münasebetiyle جبي düzenlenen هدوس لوجي جبيني لون resepsiyonumuzu لقى سوق إلى teşriflerinizden وضع ötürü ما sizlere teşekkür ediyor. إلى وضع ما Saygıdeğer konuklarımızı saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. waxaan idin soo marinayaa salaan qiimo badan oo ku aadan munaasabadan soo xirashada markabka ما شاء magaciisu الله yahay TCG Kinaaliada ee dekedda Muqdisho oo kusoo xirtay iyo sidoo kale xuska 23 Abriil oo ku beegan maalintan oo ah maalinta xorriyadda iyo ciidda carruurta. الحمد Ne mutlu ki لله Türk milletinin milli egemenliğini tesis ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Ve bu yüce mecliste egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletinde olduğunu haykırdığı bir günün 104. yıl dönümünde Mogadishu'da Somalili kardeşlerimizle de bu önemli günü kutlamaktayız. قار الله دسي قار nasiib دش wanaag waxaan walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho kula dabaaldegaynaa maalintan qiimaha badan oo ku beegan sanad guuradii 104aad ee kasoo wareegatay markii ay dowladda Turkiga midnimada u taagtay qarannimadeeda ayna dhistay golihii shacabka ee Turkiga. Öncelikle Elhamdülillah. Türk Somalili Ela Kore'de kardeşlerime Türkiye'de, Sayın Kor Allah'a Cumhurbaşkanımızın ve aziz milletimizin en samimi selam ve sevgilerini iletmek isterim. ugu horeyn waxaan rabaa in walaalaha Soomaaliyeed aan u soo gudbiyo salaan diiran oo ka timid madaxweynaheena iyo shacabkeena waxaana si weyn ugu rajo weynahay inaan idinku soo booqdo Soomaaliya mustaqbalka dhow insha Allah. İnşallah yakın bir gelecekte إلها Somali لا ziyaretin إله vesilesiyle نو أتكي دي sizlerle بدل نو bir araya أتكي gelmeyi canı ولا gönülden عليها temenni نتركي دي ediyorum. بدل لا نو أتكي insha Allah waxaan rajayn doonaa waqti dhow anigoo ku faraxsan inaan soo booqdo dalka Soomaaliya aan runtii waqti ku tirinayo. Bugün esasında her anlamda tarihi bir güne şahitlik etmekteyiz. maanta waxaan goobjoog u nahay maalin dhan walba taariikhi ka ah. ما شاء الله Türk mühendisler والله tarafından وافرحنا ileri teknoloji إمارات بهدول kullanılan جبرين ve Türk insanının bir gurur vesilesi olan Kınalıada korvetimizin الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله When I'm producing, I'll start with the song. What is it about? I'm gonna use my الحمد لله üretilen
Alhamdulillah. ve Türk insanının bir gurur vesilesi olan Kınalıada korvetimizin güvertesinde Somali devletinin neredeyse tüm üst düzeyli saygıdeğer yetkililerini misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. waxaan aad ugu faraxsanahay in mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dowladda Soomaaliya ay maanta ku dul sugan yihiin markabkan dagaal ee TCG Kinaale oo ay dhiseen runtii injineero Turki ah iyaga oo isticmaalaya tiknoolajiyada casriga ee ugu dambeysay taasi oo ah mid ay ku faanaan shacabka Turkiga runtii. Maşallah. Eminim ki şu anda konuşmamı dinlemekte olan Somalili kardeşlerim de Türkiye'nin sahip olduğu bu ileri teknolojiyle aynı şekilde gurur duyuyorlar. waxaan hubaa in walaalahayga Soomaaliyeed oo dhageysanaya khudbadeydan ay si lamid ah ugu faraxsan yihiin markabkan casriga ah oo Turkiga leeyahay waayo Zira sadece gerçek dostlar birbirlerinin başarılarıyla iftihar eder ve sadece aralarında halisane kardeşlik bağı bulunan ülkeler birbirlerinin zor dönemlerinde Walaalaha hiç düşünmeden naati kardeşlerini yardım farxadeena ediyor. anaga waa farxadeena. waayo sababta waxay tahay Dadkii waxaa tii noo soo gurmaday anagoo nalaga qoosta adduunka dhan naga indhaxarsan. Sax. Türk milleti de Somali'nin terörle mücadelede elde ettiği başarılardan, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak hak ettiği yeri almasından, ekonomisinin gelişmesinden, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumasından gurur duyuyor. Maşallah. shacabka Turkiga ayaa sidoo kale wuxuu ku faraxsan yahay guulaha ee Soomaaliya ka gaartay la dagaalanka argagixisada ku soo laabashada saaxadda caalamiga iyo dib u hanashada kaalinta iyo sharafta ee ku dhax lahayd dowladaha dunida dhexdooda horumarinta dhaqaale iyo inaan si adag u ilaalino madax banaanida iyo wadajirkeeda dhuleedba. Ilaahay idinkiis kor Allah idinka dhigo kor Allah idinka dhigo kapsamında Xasan Sheekh Maxamuud waa mahadsantahay maanta walaalaheen haddaad noo keentay oo noo Somali ogolaatay ile dostluğumuzun, imaaraadkana naga buri kardeşliğimizin, Naga buri ortaklığımızın imaaraat. ve kader birliğimizin bir nişanesidir. booqashada maanta ee markabkan dagaal oo soo booqday magaalada Muqdisho TCG Kinaale ayaa qayb ka ah heshiiskii difaaci iskaashiga dhaqaale ee dhowaan aan wada seexanay waxayna muujinaysaa saaxiibtinimadeena walaaltinimadeena iskaashi iyo aayaha wanaagsan ee aan la wadaagayno Soomaaliya. Maşallah. Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyenin dünyada çok az örneği bulunuyor. xiriirka ka dhexeeya runtii Soomaaliya iyo Turkiga heerka uu gaarsiisan yahay tusaale la mid ah adduunka aad ayuu ugu yaryahay. Sax. Bu kardeşlik Maşallah. ruhu artık Allah öyle bir farhat noktaya ver. gelmiş halde ki ülkelerimiz arasında imzalanan anlaşmalar Ilaahu Somali mahadda parlamentosunda Ilaahu oylanarak mahadda değil, Allah rabbi alkışlanarak kabul ediliyor. Ilaahu adam hadda runtii walaaltinimadeena waxay hadda gaartay heer heshiisyada wadamadeena u dhexeeya ee dhacaan in baarlamaanka halkii cod loo qaadi lahaa sacab lagu ansixiyo. Tabii Maşallah. ilişkilerimizin bu noktaya gelmesinde 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği Soomaaliya noo soo gurmada anoo adduunka naga indhax qarsada qaar Allah idin sii qaar Allah idin sii qaar Sayın Turkiga Recep noolaada Tayyip Erdoğan ve walaalaheena Sayın jiro Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'un haddana liderlikleri qataraan ku belirleyici oldu. jirnaa noo soo gurmada qataraan ku Kulankan waxay jirnaa ku timaaday hogaankii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo kasbaday kalgacaylka shacabka Soomaaliyeed Yes. kadib booqashadiisii We 2012 hogaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabab u ah heerka uu gaaray xiriirka labadeena dal. Maşallah. Thank you. Waxaan aaminsaneen Ilaahay waa naga fujiyay Xasan Sheekh Maxamuud. waajib naga saaran tahay imaaraadka inuu noo soo wada umaleyneen imaaraadka wadaday soo dhameeyeen imaaraadka waxay soo dhameeyeen guul weyn ayaan isla gaarnay muddo aad u yar gudaheeda. maşallah. Somali'nin dış dünyaya açılan kapısı konumundaki Mogadishu limanı ve havaalanı Türk firmalarımızca işletiliyor. Thank you. dekada iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho ah marinka laga soo galo Xasan Sheekh Maxamuud, thank you. Qaar Allah ku siiyo. shirkada Turkiga iyo Soomaaliya. Sadece Somali'nin değil, Afrika boynuzunun da en prestijli hastanesi olarak Hala kabul ku gören faraxna waa halahaas anaga maanta maşallah. The NFL Maanta season waa naga will be farxad. back before you Haddaaba know it. Sign up for NFL Sunday Ticket with YouTube TV. haddaaba imaaraadkaas ilaahay naga qaaday ilaahayo waa ku baryaa Somali Türkiye Recep Tayyip Rabbiyo, Erdoğan Eğitim ve Araştırma Rahmanko, Hastanesi Turkigo, ilaahu binlerce khayr insana idin şifa dağıtmakta. keliya maaha Soomaaliya inaan hadda garab ka siinayno maamulka dekedan waxaa sidoo kale la mid ah cisbitaalka tababarka cilmi baarista ee Recep Tayyip Erdogan oo lagu tiriyo inuu yahay cisbitaalada ugu wanaagsan Soomaaliya iyo sidoo kale geeska Afrika ayna daweynayaan kumanaan bukaana maalinle. sax Resmi kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra sivil toplumumuz da Somali'nin dört bir gaaskana yanında noo soo saara kardeşlerinin hayat baasiinka koşullarını ilaahay iyileştirmek idinkiisa üzere fedakarca çalışıyor. sidoo kale hay-adaha iyo ururadeena bulsho ee rayidka ayaa si hagar la'aan ugu shaqeynaya horumarinta xaaladaha nololeed ee walaalaheena guud ahaan Soomaaliya. asha
Somali Türk Görev Kuvvetimiz Somali Ulusal Ordusu'na her alanda büyük katkı sağlıyor. İlgili kurumlarımız Somali Polisi'nin eğitimi için faaliyetlerine devam ediyorlar. ciidanka Turkiga ee Soomaaliya ku sugan ayaa gacan weyn ka geysta dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhan kastaba. Sidoo kale hay-adaheena waxay sii wadaan howlahooda ku aadan tababarka booliska Soomaaliyeed. Mogadishu Büyükelçiliğimiz dünyadaki en büyük diplomatik misyonumuz. Bu denli büyük bir büyükelçiliği Somali'de açmamızın elbette bir nedeni bulunuyor. Safaaradda aan ku leenahay Muqdisho waa safaaradda ugu weyn ee diblomaasiyadeed aan ku leenahay caalamka. Dabcan waxaana jirta sabab keentay inaan safaarad intaas leeg ka furno Soomaaliya. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler artık bir kader birliğini işaret ediyor. Xiriirka wadamadeena ka dhexeeya hadda waxay u muujinayaan masiirka aan wadaagno. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, mudane madaxweyne marti sharafta qiimaha badan. Somali'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası için elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Waxaan sameynay wax kasta oo aan ku awoodna inaan u ilaalino xuduudaha iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Thank you. Somali'nin güvenliği, Türkiye'nin de güvenliği. Thank you. Amniga Soomaaliya wuxuu la mid yahay amniga Turkiga. إله ربنا alhamdulillah. Waan farxay maanta. İstikrarını hiçbir zaman kendi ülkemizin istikrarından ayrı görmedik. Waan farxay. Xasiloonida Soomaaliya marnaba umaanan arkin inay gooni ka tahay xasiloonida dalkeena. Alhamdulillah. Bugün Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk çocuklarına değil, dünyadaki tüm çocuklara hediye ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramını da kutlamaktayız. Soomaaliya marnaba umaan arkin inay gooni ka tahay xasiloonida dalkeena. Maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta qarannimada iyo maalinta carruurta taas oo aasaasiya jamhuuriyaddeena Gazi Mustafa Kemal Atatürk uu ugu hibeeyey carruurta Turkiga iyo sidoo kale dhammaan carruurta dunida. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim ki Somalili evlatlarımızın Türkiye'deki kardeşlerinin, akranlarının sahip olduğu imkanlara kavuşması için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Munaasabadan halkan aan ku sugannahay waxaan mar labaad ku cadeynayaa inaan ku dadaali doono siday ubadkeena Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen fursadaha ay helaan walaalahooda Turkiga. Maşallah. Somali'nin genç nesilleri için eğitim konusunda verdiğimiz desteği de sürdüreceğiz. Dhalinyarada Soomaaliyeed garab istaagga aan u sameyno dhanka waxbarashada waan sii wadi doonaa. Çünkü biliyoruz ki geleceğimiz, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız gençlerimize, çocuklarımıza emanet. Sababtoo ah waxaynu ognahay in mustaqbalkeena dowladnimadeena iyo madaxbannaanideena ay tahay in lagu aamino dhalinyarada iyo carruurteena. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmut olmak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayan tüm Somalili kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Anigoo fursaddan ka faa'iideysanaya waxaan halkan ugu mahadcelinayaa oo ugu horeeya madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud iyo marti sharafta qiimaha badan halkan isku sugan. Xasan Sheekh Maxamuud. Allah'a emanet olun. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan. Maanta waan kugu farxay. Imaaraadka haddaan noo soo gelinin. Soo diray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga mudane Hakan Fidan. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Beni sabırla dinledikleri için. Mar labaad madaxweynaheena waxaan leeyahay waa mahadsan tahay maadaama Şimdi yüksek müsaadesi olursa Sayın Savunma Bakanımızı sahneye davet ediyorum. Sidoo kale haddaana saaxiib maxamed madaxweyne waxaan rabaa inaan hadda mikrofon kusoo dhaweeyo wasiirkeena difaaca. Maşallah. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Mudane madaxweyne, wasiirada, safiirada, war imaaraadka naga bixiya oo askarteeni dhameeyay xildhibaanada saxaafadda dhammaan salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. askartii Soomaali maxay ku dhamaatay warka ugu badan madaxweynaha ayaa dhihi doona laakiin mudane madaxweyne maanta oo maalin aad u qiimo badana maalin aad u sharaf badana oo aan dekeda Muqdisho ugu sugannahay inaan ka qayb qaadano xaflad aad u qiimo badan oo safarkii muddada dheeraa ee qiimaha badnaa oo aan adigu ugu hogaaminaysay oo ahayd in dalkaani uu helo amni ku filan baddiisa iyo xuduudihiisa iyo cirkii intaba ku filan la helo loona kaashado qof allaala qofkii Soomaali iyo qiimaheeda jecel ama inay horumarta rabo
safarkaas dheeraa ayuu qayb ka yahay maanta leeba haleesheenbo waxaan rajaynaynaa wixii fiicnaa Soomaali u fiicnaa maanta maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda ay si isdaba jooga ay ku imaan doonaan insha Allah intay dhimatana Allah u naxariisto askarteeni oo la dhameeyo ka siimaan loo dhameeyo waajibaadkii heshiiskii maaragtay taariikhiga ah ee dalkan uu la galay dalka walaalaha Turkiga mudan madaxweyne warkii intaanan badinin aadaad maaragta ugu faraxsannahay inaad maanta halkaan nagala soo qayb gasho waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda Turkiga oo heshiiska muddadii koobnaa aan kula jirnay tallaabooyin aad u muhiim ah hataa haleesheen idinka nabadda Soomaaliya hataa nafsadiina ammaan galiseen ummadii Soomaaliyeedna aad ammaan galiseen maalintaad keenteen Turkiga good job malaan idinku soo jeesana maya ma jirto hataa wixii dhinta oo dhibaato la soo sameeyana ilaahay ha u naxariisto intay dhimatay adiga ayaan kaa sugaynaa iyo waamirtaada aada u mahadsantahay imaaraadkana naga buriyo war asagoo Suuriya soo dhameey asagoo wax kasta soo dhameey yaad waxarta imaaraad nagu sii wadin imaaraad hana laga bixiyo imaaraad بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حسنت حتى هالشيء حتى هالشيء مدحوينه وما حسنت walaalkeena Turkiga waxaan noo ogolaatay oo nood keentay awal xabis lehen madaxweynaha muu fikiro waa dhiman waa rafaan askarti waa la dhamay sida wasiirku u sheegay maanta imaaraadana dhamay dawlad heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiya bishii February ee sanadkan bilowgiisii in ay miradhal u noqday hawshiisiina ay bilaabatay inkastoo oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badan oo kamid ay soo socdeen laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobayay in si buuxda heshiiskaas u dhaqan galo alxamdulilah waa faraxna wallaahi maanta laakiin maanta markabkaan inuu yimaadahay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqan galay waxaan kaloo rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto halkaan mahadcelin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka Turkiya ama u sii madaxweynahooda walaalkeen Rajab Tayyip Erdogan oo aan leenahay mudane madaxweyne dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahadcelinayaan waa run aad iyo aad ugu mahadcelinayaan wallaahi waa faraxna والله وافرحنا سومالي دنا وإلى مت وافرحنا adiga iyo shacabka reer وافرحنا تركي ولا لهنا walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin imaaraad naga bixi bis madaxweyne imaaraad duuduuba dhahoshaad bax ka tagna meesha ku kasbateen ma aha saaxiibo waxaad ku kasbateen walaalo muddo taariikhda muddo kooban ayaga anoo imaadeen anagoo inaga cadda oo adduunka naga indha oo fog oo aad iyo aad oo xusid u mudanna aan wada lahayn haddana ilaahay idankiis ay halkaasi ka sii ambaqaadi doonto alxamdulillah waan faraxna odagii Turkiga sababay in taariikhdaasi qadiimkeeda hore la soo celiyo walaaltinimadaas hore ee boorka fuulay boorka laga jafo dibna muxuu ahaayeen isugu soo noqon maanta waa maalin kale oo weyn waxaan hambalyaynaynaa shacabka أمانة كجرنا هذا أمان إلهي كسكو أمانة كجرنا تركيا أمانة ها معاك شرفت الكرامة ولا أي لسه النقدين سيد هذا كان والله شيء تاريخ زمان كوي صح وعن سيدو كان بقالين يا مالين تعرضته الدنكا مالين تعرضته تركيا طبعا وأنا مالين تعرضته صوماليا ما شاء يا والله أنا بكس فرحتنا فرحتنا وفرحتنا وأبيه جمهورية تركيا waxay ahayd fikir oo keenay socdayna oo dhaqan galay waxa uu keenay jamhuuriyadda Turkiga oo keenay waana dhaqan gashay wata boqolka sano u dabaaldegaysa sanadka la soo dhaafay ma sha Allah leeyahay marka walaalaha Turkiga dad maanta
inta turkida أمانة كجرنا الحمد لله مركا أمانة كجرنا قالوا بدن إيوانات بدن أدوية وكيف جيستي وأنا أمهات علينا ضد بدن أيانا نفتو ذكوهاي أيوة ضدك الصومالي كالمينايو قاردا كردون وضما كردون كيمدي جدادك أيوة نورنسا يلا أتاقي وأنا إمارات وحكا معها وراليه دوان تركيها أنا دافعان إمارات أنا دافعان لا ونقبحي لا ونقبحي مدحوينه ونقبحي تركي محلك وان اللي إماراتك وكتعزييني وأنا كتعزيينينا وأنا حسين لا يا رب يقول كسي هربي أو سدوا كله أو لو أتاعي محان جدك نساي وصم فلية أو محان كرادا يقرب تاعي جدك أيوة نساي حتى جدك كينا أجري حسناتها إذا كسيو تركي قوليستا تاريخ ذا وإذا كنت سيسا وأنا إذا كأبار هيسا ما شاء الله أنت كذب وحنا وضعت الصوماليات إن أوبا أو الشعب كرسوني بدن إنه قبان أيوة كو قبل كرسوني داس بدن دولة أيوة كو قبل كرسوني داس بدن الشيء كأن لا قالنا ولا عليه تركيا يس يا أيوة كو قبل كرسوني داس أقول رحسنا مكان تركيا ولا عليه نوع نوكر كاره إن شاء الله حتى أنا نوكر كاره يقرأ عن هنا فعل ما أنت dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqeynaya samafalka ayaa jooga Soomaaliya oo Turki ah dhaqaatiirta ugu badan ee dadka Soomaaliya daaweynaya ayaa jooga Soomaaliya bisbeeska ugu weyn oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeya ayaa laga furay askarta ciidamada center ama xarun lagu qalo wadnaha open heart surgery waxa la yiraahdo lagu sameeyo ayaa laga furay halkan Soomaaliya isbitaalka Rajab Tayyip Erdogan waxaa sidoo kale dhawaan ayadana la furi doonaa xarun kale oo ayadana lagu daaweeyo kansarka waa fursado aanay dad badan oo kaalmeynay aanay loo hayn ama aanay waa dhisay waliba meesha kansarka waa la dhisay isbitaalka kansarka arrinkaasi arrin maxaan ku yiraahdaa siyaasad ama NGO nimo ama looga danbeeya ma annaga Soomaaliya haddaan nahay iyo shacabka Turkiya waxaa naga dhexeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn waxaa naga dhexeeyo walaalnimo madaxweyne adigoo adduunka ka indha qarsaday waa dadka ku imaado awlaadii tacbaanka ee sas u xambaarsaday Tayyip Erdogan iyo xaaskiisa hayloobidaas saaxiibada caalamka oo dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo maxaa qadarin u hayno haddana waddanka Turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore maanta Soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaaliya haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmeynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad markale ummadda Soomaaliya ugu sheegaya heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan keligood ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale ay nagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey propagandada dacaayadaha wararka tafsiiraadka ama fasiraadka xun ee laga sameynayo guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhawaan ee bishii February sanadkan wax ka sameyn kara maalinta kii ka sameeyay waa tuug aad iyo aad ugu sheeg waa wax madaxweyne waa dad maxaan ku yiraahdaa Rajab loo diidan inaan Erdogan waa ninka kaliya anagoo adduunka ka dhaqaaqno waa dad madaxweyne adduunka naga indha qarsaday sharafteeni iyo karaamadii ummad ahaan aan lahayn inaan soo cesho taasaa loo baahay waa ku mahadsan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaasoo dhan ma suurto gelayaan dowlad haddaanan helin dowladna waxay leedahay asaasiyaad la yaqaanay leedahay ciidan ay leedahay dowlad si ay u jirto dastuur ay leedahay dowladu si ay u jirto howlaheeda ayay leedahay dowladu si ay u jirto hay-ado ama institutions ayay leedahay dowladi oo xooggan oo dadkeeda u adeega si ay u jirto
intiba gacantaan ku jirna dacaayadaha